السلام عليكم كسو دواada qaybta shanaad ee barnaamijka fariin laakiin maanta waxaan halkan kugu soo gudbinayaa 10 qof ee qaaradda Afrika ugu qanisan uguna hantida badan liiskan waxaa soo saaray jariirada Forbes oo ah jariirad caan ku ah inta badan ka hadalka dhaqaalaha iyo hantiilayaasha caalamka liiskan wuxuu ka kooban yahay 22 milyaneer oo Afrikaan ah laakiin waxaan soo qaadanaynaa 10 ugu horeeyo annagoo sheegayna meesha hantidooda ka keeneen iyo sida ay ku kasbadeen si qofkii daneenaya ugu daydo ujeedka mowduuceena ma aha in aan iska sheegno milyaneeradan hantidooda sabab la'aan waxaan ula jeedaa in aan isku dayno bal in aan sideedoo kala samayno waxyaabaha guulaha lagu gaaro waxaa ka mid ayaa la sheegaa ku dayashada dadka guulaha xaqiijiyey haddaba linkiga rasmiga ah ee liiskan waxaan idiin soo dhigayaa hoos ciddii danaynayso descriptionka ama sanduuqa tilmaamaha ku soo dhowaada mowduuceena maanta waxay idiin soo gudbinayaan anigoo Cumar Inshaar Afrika waa qaarad leh mustaqbal aad u wanaagsan dhinaca dhaqaalaha waana meel wadamada caalamka oo dhan u tartamayaan leena fursado aad u wanaagsan qofkii mashruuc fiican u soo diyaarsado waxaana kugu daliila in mid ka mid ah ragga aan sheegayno uu 2003 howlgalay maantana uu yahay bilyaneer tirikoobyadu waxay tilmaamayaan in 160,000 oo qof oo Afrikaan ah hantidooda ka gudubtay xadka $1 milyan qaaradda Afrika haddii aan soo qaadano nambarka koobaad ninka qaaradda Afrika ugu qanisan waa Aliko Dangote 59 jir Nigerian hantidiisa saafiga waxay gaaraysaa $12.1 bilyan meesha ama isha ay ka imaadeen hantidiisa waa ganacsiga shamiitada sokorta iyo burka Aliko Dangote wuxuu dusha kore ka saaran yahay liiska dadka ugu hantida badan qaaradda Afrika ninkan waa milkiilaha ahna aasaasaha shirkadda shamiitada Siemens ee qaaradda ugu weyn shirkaddan sanadkii waxay soo saartaa 30 milyan oo tan oo ah shamiito 2005 waxay xarumo ka furatay wadamada Ethiopia Zambia Tanzania sidoo kale 15 dawladood oo Afrikaan ayay xarumo ku leedahay shirkaddu bilowgii shirkadaha Dangote waxay ahaayeen shirkado yar oo badeeco yar iibiyo ganacsigiisa wuxuu ku bilaabay ayaa la sheegay deyn yar uu ka qaatay adeerkii qaabka aad wax u bilowda muhiim aha muhiimadu waa inaadan istaagin hantidiisa mar ayay gaartay 15 bilyan oo dollar laakiin hoos ayay u dhacday arrimo la xiriiro hoos u dhaca ku yimid lacagta Nigeria laakiin wali waa ninka qaaradda ugu qanisan kaalinta labaad Nicky Oppenheimer 17 jir South African hantida saafiga 7 bilyan oo dollar Nicky Oppenheimer wuxuu ka soo jeedaa reer caan ku ah ganacsiga dheemanka muddo 85 sano ka badan ayay reerkan caan ku ahaayeen laguna yaqaanay hogaaminta ganacsiga dheemanka adduunka oo dhan 2016 Oppenheimer wuxuu iibiyey dheeman buluug oo qiimaheedu gaaray 57 milyan oo dollar waana dheemankii ugu qaalisanaa caalamka ee la iibiyay abid sidoo kale reerkan waxay leeyihiin shirkadda Anglo American ee ka shaqeysa baaridda macdanta iyo arrimaha la xiriira dahabka iyo dheemanka shirkaddan Anglo American waxaa aasaasay aabaha Nicky Oppenheimer kaalinta saddexaad Mike Adenuga ninkan arrinkiisa wuu noqosaya si fiican u dhageysta hantidiisa cidna kama dhaxlin ee waxay imaadey kadib shaqo adag iyo maskax miir haydasho iyo dhidid muddo dheer ayuu maskaxdiisa majoojinayay si uu hantiilo u noqdo waa 63 jir Nigerian hantidiisa saafiga waxay gaaraysaa ku dhawaad $6 bilyan oo dollar 5.9 bilyan dollar Mike waa milkiilaha iyo aasaasaha shirkadda taleefanada gacanta ee Globalcom shirkadda labaad ee ugu weyn dhinaca taleefanada Nigeria waxaana ku xiran 36 milyan oo qof taasoo ka dhigan in 36 milyan oo Nigerian ay isticmaalaan adeegga shirkadda kala duwan shirkadiisa isgaarsiinta sidoo kale waxay ka shaqeysaa wadamada Benin iyo Ghana waana ninka labaad ee ugu qanisan wadanka Nigeria sidoo kale ninkan wuxuu leeyahay shirkado shidaalka baaro mandiqada Delta Niger sidoo kale wuxuu leeyahay shirkado dhinaca guryaha ka shaqeeya ama waxa loo yaqaan real estate ama caqaaraad 2003 ayuu aasaasay shirkadihiisa xilli waxaa jirtay uu taksiilaha si uu quutul daruurigiisa u dabaro mar uu jaamacad ka dhigan jiray wadanka Mareykanka markii uu dib Nigeria ugu soo laabtay kadib dhaqdhaqaaq badan ayuu sameeyay hawlihiisa waxaana xigay in lacagtu soo harato iyadoo malaayiin laakiin dadaal badan kadib kaalinta afraad Johan Robert 66 jir South African hantida saafiga $6.1 bilyan hantida maalqabeenkan waxay ka imaaday inta badan asal ahaan dhaxal uu ka dhaxlay aabihii iyo ganacsiga alaabta qaaliga sida saacadaha Swiss-ka ee qaaliga dharka maalqabeennada waana madaxa shirkadda Cartier wuxuu sidoo kale saamiye ku leeyahay shirkadda tubaakada ka ganacsado shirkaddan saacadaha waxaa laga leeyahay Swiss-ka laakiin asaga ayaa madax ka
waxayna ku jirtaa suuqyada ganacsiga Swiiska qiimaheeduna wuxuu gaarayaa 42 bilyan dollar. kaalinta shanaad Christopher Wise hantida saafiga 5.6 bilyan dollar 75 jir South Africana. Master Christopher hantida cidna kamuu dhaxlin waa dadka lagu magacaabi karo nin karmeed gacmaha xaytay. markii uu jaamacadda dhameeyay wuxuu ka shaqeeyay shaqooyin caadi ah oo bishii markay dhamaato xoogaa loo tuuro. sidoo kale wuxuu maamulo ka noqday shirkad dharka iibiso aad u yar. kadibna wuxuu u wareegay uu ka shaqeeyay shirkad South Africana lagu magacaabo Shoprite. intii uu ka shaqeynayay Shoprite waxaa kor u kacay qiimaha shirkadda waxayna furatay xarumo kale. balaayiin dollar ayay gaartay faa'iidada shirkadda Shoprite wuxuuna u dejiyay istaraatiijiyad isfidineed oo ah shirkaddu inay la wareegto shirkadaha yaryarka ee kale. maadaama uu shirkadda gaarsiiyay qiimo weyn waxaa gacanta loo geliyay maamulka iyo furayaasha shirkadda. 1997 wuxuu iibsaday Fayse shirkad South Africana oo lagu magacaabo Bazaris. waxayna xilligaas la daalaadhacaysay dayn laakiin isku shaandhayn ayuu ku sameeyay wuxuuna furay 157 supermarket ama suuqyada waaweyn ee wax lagu iibsado iyo 10 dukaan oo kala duwan. wuxuu leeyahay sidoo kale kumanaan dukaan oo xambaarsan magacyo kale. 2011 ilaa 2012 kadib qiimaha shirkadda Shoprite oo kor u kacay darteed Fayse wuxuu gurtay malaayiin faa'iido. kaalinta lixaad Nassif Sawiris hantida saafiga 5.4 bilyan dollar 56 jir Masri ah. hantida waxay ka soo gashay howlaha dhismaha iyo kiimikaalka. Nassif Sawiris wuxuu madax ka yahay shirkadda Orascom oo ka shaqeyso dhinaca dhismaha. shirkadda Orascom waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn shirkadaha caalamka ee sameeya shamiitada. shirkaddan markii Masar laga soo tago waxay warshado ku leedahay Mareykanka gudihiisa. sidoo kale wuxuu leeyahay 5% shirkad weyn oo caalami ah ka shaqeysa shamiitada iyo 7% shirkadda Jarmalka ee ka shaqeyso dhinaca qalabka sportska ee Adidas. kaalinta toddobaad Najib Sawiris wuxuu walaal leeyahay Nassif Sawiris kii aan ka soo hadalnay wax yar ka hor. waa 62 jir Masri ah. hantidiisa saafiga waxay gaaraysaa 3.7 bilyan dollar. wuxuuna madax ka yahay shirkadda Orascom qaybteeda isgaarsiinta iyo warbaahinta. wuxuu leeyahay kanaale aad u badan iyo wargeysyo kala duwan. wuxuuna maalgashadaa wax kasta oo la xiriira warbaahinta. arrinka xusidda mudan ayaa ah in Sawiris shirkadiisa isgaarsiinta taleefanada ay ka shaqeyso waqooyiga Korea gaar ahaan iyadoo howlgelinayso shirkadda Korean Link. sidoo kale shirkado isgaarsiineed ayuu ku leeyahay waddanka Masar. kaalinta sideedaad Isabel dos Santos Marwa dos Santos hantideeda waxay gaaraysaa 3.1 bilyan dollar waana 43 jir u dhalatay Angola. waxayna ka shaqeysaa maalgashiga hantiyadeed. Isabel waa gabadha ugu weyn madaxweynaha Angola Jose Eduardo dos Santos. kadib maalgashigeeda Boortaqiiska iyo Afrika ayay noqotay haweeneyda ugu qanisan Afrika. dadka ku dhadhow waxay qireen in ahaanshiyaheeda gabadha madaxweynaha ayna wax saameyn ku yeelanin hantideeda ee iyadu samaysatay kadib dadaalkeeda. laakiin baaritaan uu sameeyay wargeyskan warka noo soo gudbiyay ee Forbes ayaa leh aabaheed gacan ayuu ka geystay in hantideeda heerkan gaarto. waxay saamiye ku leedahay bunuug iyo shirkado badan oo ku yaala Boortaqiiska. 2015 waxay 200 milyan oo dollar ku iibsatay qayb ka mid ah shirkad korontada ka shaqeysa waddanka Boortaqiiska. xiriir luuqadeed ayaa ka dhaxeeya labada dal taas ayaana sabab u ah in howlaheeda inta badan ay noqdaan waddanka Boortaqiiska. Isabel aabaha 40 sano ayuu madaxweyne ka ahaa Angola laakiin hantidaada wax saameyn kuma yeelanin arrinkaas. waan ka yeelnay okay. kaalinta sagaalaad Yascad Rabrab 73 jir Algeeriana hantidiisa waxay gaaraysaa 3 bilyan oo dollar. hantidiisa waxay imaaday kadib muruq maalnimo iyo dadaal suulasha looga siimay oo uu bixiyay dhinaca ganacsiga quutul daruuriga. safarkiisa dhinaca hantida wuxuu ku bilowday aasaasid shirkad yar oo dhinaca xisaab xirka ka shaqeyso. kadib dadaal dheer waxaa xigay in uu 20% iibsado shirkad dhinaca engineeringa ka shaqeysa gudaha Algeria. kadibna wuxuu aasaasay shirkad lagu magacaabo Sifital oo asaga u gaara. laakiin sidoo kale kadib shaqo adag waxay noqotay shirkadda ugu weyn waddanka Algeria. waxayna ka shaqeysaa dhinacyada quutul daruuriga, samaynta biraha, maamulidda takadaha, gawaarida iyo iibintooda. waxayna leedahay mid ka mid ah warshadaha sonkorta kuwa ugu waaweyn qaaradda. Yascad Rabrab waa wakiilka shirkadda Samsung ee moobilada koonfurta Korea laga leeyahay
u qaabilsan waddanka Algeria sidoo kale wakiilka gaarka ee shirkadda Hyundai iyo Fiat oo ah shirkado soo saara gawaarida. nambarka 10aad Mohamed Mansour 68 jir Masri ah hantidiisa waxay gaaraysaa $2.7 bilyan. hantidan wuxuu ka helay kadib muruqmaalnimo iyo dadaal shaqo habeen iyo maalin ah. waa madaxa iyo milkiilaha Mansour Group sidoo kale waa wakiilka keliya ee Masar geyn karo gawaarida shirkadda General Motors ee Mareykanka iyo agabka Caterpillar. sidoo kale saamiye ayuu ku leeyahay McDonald's qaybteeda Masar. wuxuu sidoo kale maalgashiyay malaayiin dollar gaarayo ku leeyahay Mareykanka iyo Imaaraadka iyo wadamo badan oo Afrikaan ah.